marka hore intii qaban qaabisay iyo inta ka soo qayb gashayba munaasabadan nabad raadinta aad iyo aad baan u amaanaya waana soo dhaweynaya waxaan is leeyahay waa arrin maqnayd oo loo baahnaa waqtigii loo baahnaa ku timid way hadda gaalkacyo inay labada dhinac xabad la isaga rido arrin ku timid maaha dadka kama imaana waxay ka timid fikir aan anigu aanan kulli aaminsanayn oo labada f la yiraahdo federal iyo 4.5 labadaas eray baa dagaashis dadka isu geysay isku dishay ee dadku waa dad wada dhashay oo wiil iyo waalidkii iyo habar iyo ilmaheed iyo abti iyo awoowe cudurkaasuna hadda waa cudurka hadda intaasoo madaxweyne noo sameeyay way waa fikrad meesha laga keenay inteenaan aan ka dhareegsanahay ana loo baahnayn in aan galabta ka sheekeeyo loo baahnayn wayna nagu sii socotaa waliba ilaahay naga badbaadiyo way nagu sii socotaa qarannimadii Soomaaliyeed iyo jiritaankii Soomaaliyeed iyo qabkii weynaayo Soomaaliyeed iyo qadeedii ballaareed oo micnaha lahayd oo Soomaaliyeed ayaa saas maanta ku socota halkaas ay ku socotaa walaalayaal gaalkacyo magaca loo kala baxshay ee galmudug iyo Puntland wax ka weyn oo micno leh bay ahayd deegaankaas gobolada dhexe la yiraahdo oo isku jirka ah gobolada dhexe loo yaqaano deegaan taariikh kula weeye dana arinta Soomaaliyeed taariikh kula weeye deegaan macna u sameeyay weeye gobonimada Soomaaliyeed inay timaado oo xorriyadda qaato deegaamada macnaha u sameeyay in taariikhdooda la inkiri karin weeye deegaamada markii la tiriyo dadkii maxaan ku raag gobonimadan maanta waxa inta badan la xusaa 13 shakhsi oo leegada ahayd baa la xusaa inay aasaas u ahaayeen inay ummadda Soomaaliyeed ka xorowdo gumeystayaashii deegaamada intooda badan ay ka soo jeedeen bay ahayd deegaanka laba walaala oo wada dhashay oo 13 leegada ay ka soo jeedaan bay Yaasiin Xaaji Xismaan iyo Daahir Xaaji Xismaan soo saasma deegaanka labana wada dhalatay hadda 4.5 hadii bariga laga dhigi lahaa laba wada ogolaadeen Soomaa ilaa 4.5 baa mid bay dhabayn laga keenay ahaan lahayd mid xagga Kismaayo mid xagga saas ahaan lahayd qadiyad Soomaaliyeed oo macna leh oo la tilmaami karo oo maanta jiilka dambe loo sheegi karo qadiyadaas ah taas ah laba walaalaha ku jirta 13 leegada waxay sameeyeen waa noo muuqdaan taariikhda ku qoran tahay laba inkiri karo jiilka maanta jooga iyo kuwa dhalan doona iyo kuwa dhabarka ku jira iyo kuwa dhulka gurguranaya annagu maxaan u sheegaynaa jiilkayga hadda sii socda maxaan u sheegaynaa inaan sameeynay intaasoo madaxweyne intaasoo baarlamaan inaan sameeynay intaasoo duulaan in la sameeyay intaasoo dad in la laayay ama la barakiciyay intaas inaan badaha ku laynay taasaan akhrinaynaa haddaanan annagu akhrin ayadaa isquraysa oo nina inkiri karin waaye jaamacadaha biri lagu dhigi doonaa wax maanta yaalla nin kasta ama qof kasta oo hogaamiye maanta dalkan ka noqday mustawa kasta ha joogay taariikhda ama dilaysa ama nooleynaysa asaga haday dili weydo ilmihiisay dilaysa shaki kuma jiro ilmihiisay dilaysa ina hebel baa tahay baa leeyahay ina cali xaashi baa tahay baa leeyahay birito waxa la rabaa marka waarimaysa war ka harawe qofka bini'aadanka intuu noolaan karo culimada maanta la joogtay sheegayna la jooga maxay 60 wa 70 Soomaa badwin 60 70 Soomaa dadkan inteena badan hadda waa ku dhex jiraa Soomaa ninka marka da'daas jooga ama darajadaas jooga ama dad ahaantaas fahamkeeda leh maanta inuu ka taliyo in gaalkacay labada dhinac suul la isla dhaco iyo hoobiye la isla dhaco waa arrin nasiib darro waaye waa arrin la rabo inay dhadhankeeda xun lahaato waaye dhadhan xun bay leedahay dhadhanka xun in laga gudbo waaye nimanka madaxweynayaasha oo galmudug iyo Puntland waxa laga rabaa siday wax u dhahaan iyo siday u dhaqmaan deegaanka maanta mas'uuliyadooda gacanta ay ku hayaan oo dadku ay tirsanayaan oo hormuudka ka yihiin oo ida indhood waa riyaal la yiri la fiirsanayo maanta ayay taariikhdooda xusaysaa waxa laga rabaa nabadda maanta intaan ku baaqayso oo ay la xun tahay nabad darradu inay ayagu ugu horeeyaan hormuud ka noqdaan isu soo hor fariistaan wiilasha xabadda isku riday hortooda yimaadaan mid walba amar siiyaan waa siin karaa ilaa maanta waa siin karaan meeshii loogu talagalay geeyaan taariikhda ay meel ka galaan meel ka ciriirsadaan sumcad macna leh ilmahooda wax loo ay sheegi karo dadku ay u xusi karaan waqtigay joogeen hadda waxa professorku sheegay
عبد الله يوسف أحمد محمد فارح عيديد laba oday oo maanta soo maray bay ahayn dalkan soo maray bay ahaayeen ummadoodina maanta ciid ka hooseeya soo saas ma inteennana waa u soconnaa waa aayad quraan soo ma halkaasaan tegaynaa iyo inta hadda aan dhaliilayna ama aan amaanayno halkaasaan wada soconnaa waxaa la rabaa marka inaan u gudubno oo u qunno waqtiga ay wax ka qabashada leedahay inaan arrinta noocaas u dhawaano anigu dhaqan maahay laakiin dhaqan yaqaan baana waxaan garan karaa bulshada wax isku disho waxaan garan karaa waxa dadka ugu aqoon badan baali waxa ugu aqoon badan baali ninkii tuugay ninkii u taliyay ninkii bariyay iyo ninkii u taliyay baa dadka garan kara dadka deegaankaasu waa dad aad iyo aad colaadda ay u fududahay inay colaad u dhacdo laakiin hadday hoggaan fiican helaan waa dad maslaxadda inta badan qaadan og oon cuqdi badan caloosha ku qaadin oo iloobi og wixii shalay dhacay maanta iloobi og bay deegaamada kale Soomaalida qaar baysan ka jirin arrintaas maanta haddii la islaayo maydkii banaanka yaala iyadoo la xabaalay baa la leeyahay war maxaan ku iraahdaa xaladhalay kelmadda xaladhalay la yiraahdo xaladhalay laga soo qaado yama iska lagu rida gaalkacay eray bixintaas laga qaataa gobolka laga yaqaan